waxa laga hadlayay tirooyinka heer federaal lagu tagayo 20 qolo ku dhawaad oo inaga ah oo qaar badda tiro la siinayay tirada qolo walba la siinayay iyagoo uu ku yiri wiil saddex bal la siiyay saddexdu mid la ka boodeen horta xogogaal waan u ahayo siday wax u dhaceen shalayto deewaanku joogay xalkii xalintana dad shakhsiyaadkii ka qayb qaadanayay oo man kamid ah fulinayay oday dhaqameedka shalayto gudida farsamada oo heerka commissionka wadaxaajoodka ayaa war yar sir khaldana dadka u dhaxruuray warkii un bay la boodeen iyaguna iska hubsan iyaguna wax la xalin karayay ayaan iyaguna cidna weydiin intay banaanka u soo baxeen un bay iyagoo wada socda haddana isku soo howlka soo galeen aniga markaa labada jeerba way isii dhaafeen oo isoo dhaafeen hoos baan fadhiyey markaa un bay yidhaahdeen dee waa laynagu dhex jiraa dad kalaa wax la siinayaa arrimahaasoo dhanna ma jirinba waxaa laga hadlayay tirooyinka heer federaal lagu tagayo 20 qolo ku dhawaad oo inaga ah oo qaar badda tiro la siinayay tirada qolo walba la siinayay iyagoo uu ku yiri wiil saddex bal la siiyay saddexdu mid la ka boodeen saddexdu waxay diileen iyagu ma ahayn gudida lameen xaajoon commissionka dad baa la xaajoonayay in laga wada hadlo oo la weydiiyo waayo oday dhaqameedku inaga degmooyinkana waynu ka nimid kuwana waa heer deegaan waa gurub heer deegaan marka fariin xun iyaga markii hore si khaldan u gaadhay bay iyaguna falcelin khaldan kaga jawaabeen dadkan ay ka hadlayeen Etoobiyada kale iyana idinku shalayna waad joogteen maantana waad joogteen hadda maanta waynu isku wada nimido waa la xidhayay Soomaa hadda ma de qolooyinka ka hadlayeen miina la joogeen ma ajenday la qoranayeen ma 46 bay naga ahaayeen Soomaali un meynaan ahayn dadkeena meesha isugu tagay waxay nala joogay soo shakhsiyaadkii commissionka ay adisabakii Soomaa qoladii ajendaha dhiibanaysa soo inaga ma qoladii ajendaha akhriisanaysa soo inaga ma de marka cid kale meesha may joogin khaladkaasuun xubno kamid ah odayaashooda ormay xubno kamid ah ay la yarboodeen baa la yartaraartay shalayna markii dambena waa laga daba tagay wixii khalad ay commissionku lahaana way qaateen wixii odayaashu ay lahaaneen de iyaguna way qaateen marka isla shalay gelinkii dambaba maqribkiiba waa la xaliyay alxamdulillah madaxweynuhuna si fiican buu uga qayb qaatay in arrintaa la xaliyo laakiin madaxweynihii cid waliba inagii waxaan marnaba aynaan samayn inaynu wax tanaasula ka samayno qadiyadda Soomaaliyeed arrintan wada hadalka qaran dadku wali wax isweydiinayaan ujeedada laga leeyahay say wada hadalka qaran muxuu yahay jiilashan hadda jira dhalinyarada hadda aan ka mid ka lameena soo kulmin dalkan wada hadal qaran ka socdo Etoobiyada wada hadal qaran ka socdo waxa sarka ku hayaa horta ama idinka haado ama anaga har ahaade qolana lama soo kulmin idinkaaba jaanis haysta hadda fiicanoo wax la idin weydiinayay anagu xuquuqda waxba ma waxanba kamaan hadlay laakiin ujeedadu waxa weeye Ethiopia wax la yiraahdo waligeed wada hadasho ma jirto isu timide hadii ay Ethiopiyada ka bedelan tahay oo Ethiopia hadda regional status tahay qolo walba meel degan tahay Ethiopiyada qowmiyadaha kala degdegan maxay Ethiopia ku wada maxaa ka dhaxayn kara marka wixii ka dhaxayn kara iyo sidii loo wada noolaan lahaa baa laga doodaya qolo walibana waxay rabto bay meesha la imanaysaa Soomaalidu inagu wixii soo codka waxa la yiraahdo Somali voice ama Somali agenda ayaynu la tageynaa oo horeyna waynu u qoray kan wixii aynu hore u qoray bay hadana dadku martaba hadda qorayaan markii horena codka aqoonyahanka iyo oday dhaqameedkeenu gudbinay maantana codka shacabkeenu gudbinayna laakiin ajenduhu mostly waa isku mid marka qolo waliba kaas bay ka dhex raadinaysaa danteedu bay inaguna danteenu bay raadinayna markii liiska naloo keenay ayaa oday dhaqameedka iyo gudidayada wada xaajoodka wada kulanay waanu doodnay waxaan anagu ka duwanahay anaga oday dhaqameedkayga waa decision makers ku jiraan therefore oday dhaqameedkayga waa in lagu daraa waxay nagula doodeen oday dhaqameedku deegaan isma taagaane waa inay degmooyinka iyo goboladii ka yimaadaan ilaa halkaasay gudoomiyaal ka yihiin waxaan idhi maya gole guurti baa jira magac guurti baanu markaa isticmaalnay mudday wada hadlayeen muddo kadib waxay yidhaahdeen waxay noo ogolaadeen inay iyaguna group gaara noqdaan sidaa daraadeed waxa la siiyey gudida fulinta waxa la siiyey 40 bay gaar u lahaayeen shalay kuwii hadlay
afartan kaasay ka mid ahaayeen dadka la yidhaahdo dalka haldoorkaana 146 bay ku leeyihiin bay ku leeyihiin intaa in lagna degmooyinka ka yimaadeen oday dhaqameedka haddii la isku wada dardaro dhowr boqol bay shirka ku joogeen institutionka deegaankeena waa deegaan islaamka kuma taalo waxa ku yaala Ethiopia oo dhan waa secular way diimaha iyo dawladaha maamuladu way kala dhiman yihiin laakiin dadkeena waxa mushkilada meesha taala ee aan ilaa hadda xal u laanahay ka leenahay dadkeena waxaynu ogolaanay kaniisada in laynaga dhex samaysto in layna dhex deganaado in maalmay naga dhex ciidaan inay soo baxaan kadibna aynu idhaahno ma jirtaan maalinta ay dabaaldegayaan way jiraan oo magaalooyinka ay naga xidhaan maalinta la yiraahdo waxba laga hadlayaan wax leeyahay ma jirto inagu waan ku adkaysanayna qodobkeeda sii sheegnay laakiin runta marka la aadade xabashweyne dhex digantay xabasho kale ma waa maxaaro midna waan doonaynaa ku sheego waxa jira qorshe maxaaradu ay ku talagelayso qorshaha maxaaradu ay ku talagelayso waxa weeye deegaanadii kale waa laga wada eriyay kristaanka aragtay maarta oromadu iyada isu kristaan ya qolo kastoo Ethiopia iyada isu kristaanka dominance ku haysta maxarada way iska soo wada eriyeen laakiin waa kristaan inagu laakiin da kristaanka inuu kristaan ma haysan maxaar marka maxay doonaysaa waxay doonaysaa inay kristaannimo ku yimaadaan ku soo galaan dialogue ay gudi kaga yimaadaan waxa kale ay doonayaan dhammaan Ethiopia oo dhan waa dhammaan Ethiopia oo dhan inay delegations ka yimaadaan dad ku soo darsadaan marka maxay imanaya waxaanaya Ethiopia amaaro gobol walba way degantay marka maadaama arrimihii hadda amxaaradu gacanta ku haystay kaliya kaniisadaha laga saaray oromiyo kala ala kulli xal waxa weeyaan qoliyahan diimaha ka socda hada representation may naasin Ethiopia kaliya meeshii joogteen representation may naasin commission ku inuu wax siin doono iyo in kala hada anagu warka ma hayno laakiin waxa kala dagaalamay kulli ka wada dagaalamayna weeyaan haddii ay sidaa la yeelo de waxaan ku meel kale way ka yimaadeen laakiin inagu waxaan ku imanaynaa almost 200 qof 104 waxay ka imanayaan degmooyinka 70 xaggan ay ka imanayaan intaas jaamacadaha ay ka imanayaan intaas axsaabta siyaasadda ka imanayaan intaas arrimaha ka imanayaan haddii la isku dardaro ilaa 200 qof aynu gaaraynaa marka deegaanada kale miyay ka badan karnaa kama badan karo waxnu qaar badan waynu ka badan qaarna waynu ka yaraan waxay ku xiran tahay degmooyinka ayo Ethiopia oo dhan geedba wax lagu imanaya degmo marka qolo walba imisa degmada haday 300 degmada 300 ba ka imanaysa haday maxaa 200 degmada 200 ba ka imanaya inagu 104 degmada leenahay 104 ba inaga imanaya 70 kana waa laga sameeyay wada hadalka qaran maxaa shacabka deegaanka sanadda la gudboon waxa la gudboon inay Soomaaliya ajenda waxay sameeyaan inay dad waxooda soo dhacay u dirsadaan aqoonyahan u dirsadaan waayada u dirsadaan dad luqadaha garanaya iyo dhaqanka iyo diblomaasiyadda u dirsadaan dad budwata way laga ilaaliyo oo meesha qayliya ka sameeyay oo qomiyada kale kugu soo jeedinay waa inaynu very diplomat noqdaa dadka kale Ethiopianka in isku qadiyadana anfar baynu nahay Tigray baynu nahay Oromo baynu nahay Sidaam baynu nahay Hiriyin baynu nahay Gambeel baynu nahay Benishangul baynu nahay isku waxbaan wada dareemayna dadkaas oo dhan waa inaynu fikirkooda ay fikirkeenu qabtay iyagana u wada geeyno wada midayno isku waxna dawafacno